in la cabo liinta qaniyada kaneecada iyo in dhiig lagu deeqo iyo waxyaabo kale oo badan xaqiiq hubin ay BBC-da samaysay si loo xalliyo khuraafaad badan oo ku saabsan viruska corona kuwaasi oo la soo geliyo internetka oo baraha bulshada aad loogu wadaago sida WhatsApp-ka iyo xitaa mararka qaar fariimaha message dhambaalada la isugu diro Facebook iyo meelo badan ayaa waxa ku jira fariimo aan xaqiiq loo hayn ama caddayn saynis kuwaasi oo dadka ay u diraan saaxiibadood. Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin ayaa soo jeedinaya. dhammaanteen muddo dheer ayaynu ku jiri doonaa arrintan waxaana muhiim ah in aynu kala saarno xaqiiqda iyo khuraafaadka waa kuwan khuraafaad badan oo ay tahay inaad iska jirtid khuraafaadka koowaad cabitaanka liintu waxa uu ka ilaalinayaa COVID-19 waxaa jira hadallo badan oo ku saabsan waxyaabaha ay tahay in aad cuntid ama aad u cabaysid viruska corona qiyaaliga ah cabitaanka liintuna ma aha mid ku bogsiinayo waxa ay ka bilaabatay baraha bulshada in la soo dhigo qoraallo xambaarsan talooyin beena oo ka yimid saynisyahanno shiinaysa waa wax iska cad in cabitaanka liintu xaqiiqdii aanu ahayn wax ku xun adiga dhabtii dhammaan miraha iyo qudaartu waa muhiim marka inteena badan aynu guryaha joogno waxay gacan ka geysanayaan caafimaadka laakiin kaama celin karaan in viruskan oo kale uu kugu dhaco khuraafaadka labaad qaniyada kaneecadu waxa ay kugu ridi kartaa viruska dhammaanteen waynu ognahay in cudurro kale aynu ka qaadi karno qaniyada kaneecada laakiin caddayn looma hayo mar labaad xusuuso kani waa virus neefsashada ku faafa gaar ahaanna marka qof uu qufaco ama uu hindhiso sida ugu wanaagsan ee aad ugu hortegi kartaana waxa ay tahay inaad iska ilaaliso inaad si dhow la xiriirto qof kale oo xanuunkaasi qaba iyo inaad joogtayso dhaqista gacmahaaga khuraafaadka saddexaad dhiig aad ku deeqdid in aad ku heli kartid baaritaan bilaash ah oo viruska ah dadka qaar ayaa waxa ay rajaynayaan inay helaan baaritaan bilaash ah oo viruska corona ah haddii ay dhiig ku deeqaan laakiin waxaa jira aaminaad been ah oo joogto ah oo baraha bulshada la soo dhigay waa iska caddahay in aan laga baaraynin viruska corona haddii aad dhiig bixinaysid waxa ugu dambeeya ee ay shaqaalaha bangiyada dhiigu doonayaan waa inaadan u tegin adigoo xanuunsanaya sidaasi darteed talada ugu wanaagsani haatan waa ilaali caafimaadkaaga inta saynisyahanadu ay ka helayaan dawo ugu dambeyntiina caawa waxaan idinkaga tegayaa kalkaaliyaal ka shaqeeya isbitaalku meel gaar oo ku yaala Talyaaniga ayaa